joogin bir darta waan jiranayaa inta jahal caashaqabi. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد كحنا جنال كورباهين تمانتا برامج كين هادو بكرة على هذا مانتا وحين كسو قادن دونا. فضلا haddii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay aad ku timaadid channelkan waxaan si sharaf leh kaaga codsanaynaa walaal macaan adigoo raaliya inaad subscribe tiraahdo isla markaana gambareelka furato si ay kuu soo gaadhaan muuqaalada xiisaha badan ee aan halkan soo gelino. haddaba waxaa aqal gashay fanaanada caanka ah King Jaamac Yare oo la aqal gashay saygeeda cusub ee Maxamed Alta. King Jaamac oo muddo sanad ah raadinaysay qof ay jacayl la wadaagto isla markaana xilligan la taagan yahay waxay ku haysataa fanaanka reer Minnesota ee Maxamed Alta. Maxamed Alta ayaana guursan tan iyo waagii ay kala tageen Hodan Cabdiraxmaan iyadoo ka jeclaatay Mursal Muuse oo Hargeysa ku nool, taasoo sababtay inuu furo Hodan Cabdiraxmaan isla markaana uu baadi goobo cidda uu mustaqbal la wadaagi lahaa iyadoo uu helay geenyada codka iyo quruxda isku darsatay ee King Jaamac Yare isagoo chance u helay inuu xiriirka sii adkeeyo kadib markii King Jaamac showyo heer caalami ah ku qabsatay isaguna garab buuxa ayuu noqday xilliyadii ay showyadaasi ay qabanaysay. King Jaamac ayaa hadda ka baxaysa jacayl la'aantii haysatay in muddo ah iyadoo nolosha la wadaagaysa wiilka Hodan Cabdiraxmaan ay cayrisay ee Maxamed Alta iyo King Jaamac arooskooda ayaa lagu wadaa inuu dhaco toddobaadkan balse waxaa saameeyay cudurka oo dadka aysan isu imaan karin xafladaha iyo meelaha ay bulshada isugu timaado. guurka King Jaamac iyo Maxamed Alta waxay niyad jab ku tahay Hodan Cabdiraxmaan maadaama qofkii ay cayrisay uu helay boqorad aan la holin karin isla markaana qalanjo qeyrkeed dhaaftay. taasina waxay farxad u tahay Maxamed Alta maadaama uu helay boqorada Hodan Cabdiraxmaan uga fiican. waxaana hambalyada arooska ka qayb qaatay fanaaniin fara badan oo ay kamid yihiin Fartuun Birimo, Maxamed Indo, Farxiya Fiiska, Foosiya Ifka iyo fanaaniin kale kuwaasoo ugu hambaliyay arooskooda. geenyada gobolka Sool ee King Jaamac ayaa u muuqata mid ka baxaysa jacayl la'aantii haysatay maadaama ay heshay boqorka Galmudug ee Maxamed Alta, kaasoo ka dhigan in fanaanadan King Jaamac ay noqonayso mid haatan jacaylkeeda rasmiga ah soo bandhigi doonta muddooyinka soo socda isla markaana la sugayo arooska oo haatan lagu waday inay fanaaniin badan ay ka soo qayb gasho. cudurkana uu saameyn ku yeeshay si kastaba haatee ee Hodan Cabdiraxmaan ayaa u muuqata mid ku hungowday caqabadii ay ku haysay Maxamed Alta maadaama la sheegay inay caruur isku dhaleen isla markaana caruurtaasi ay sabab noqon doonto inay ku noolaadaan guriga King Jaamac. taasina waxaa cara adag ka muujisay Hodan Cabdiraxmaan maadaama ay caruurtooda ay ku noolaan karin guriga cadowgeeda. waa sida hadalka ay u dhigtay. haddaba wixii ku soo kordhay arrimaha fanka iyo fanaaniinta wax sii shargalay walowda asxaabtaada comment nadiif ah oo caafimaad qabana qaybta hoose noogu rab waana ku maasan tahay daawashada muuqaalka.